بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بقى مهضلة كلن كان اسكو كان دمانتين با ujeedada kulankeena waxa weeyaan sida ay tahay in munaasabadooda joogno inuu ka bilaabmi doono Hargeysa tartanka loo yaqaano FA-ga ee ku tartami doona 28 kooxood oo kooxaha ka dhisan caasimadda Hargeysa tartankaasi oo sida ay xiriirka kubadda cagtu sheegeen inuu yahay markii ugu horeysay ee Soomaaliland laga qabto tartan caynkaas haddaba tartanka waxa ka qayb gali doona oo munaasabadiisa si toos ah halkan aynu caawa u fadhino ay uga socon doonto si kooxu iskugu aadayaan oo kooxdu baaba kooxda ku dhacayso ay la ciyaarayso ay ku ogaan doonto halkan oo waqtiga nasiibkaasi ay kooxuna goobjoog ka yihiin gudoomiyaashii kooxaha ama dadkii mataliyay kooxuna ay halkan fadhiyaan wasaaradda ciyaaraha xiriirkii kubadda cagta iyo shirkadihii ka qayb galiyay tartankuna ay halkan joogaan koobkan waxa weeyaan markii ugu horeysay ee taariikhda la qabto waana koob maxay sida aanu ku wadno noqon doona koob joogto ah oo la faal noqon doona xiriir kubadda cagta waana koobka muhiimad uu noo leeyahay aanu magacayaga siinay sidaan ku wadnana mustaqbalka waxaan rajaynaynaa inuu koobkan noqdo koobka ugu magaca weyn gebiga geeska Afrika insha Allah koobkan waxa maalgeliyay oo sponsorka maxay balkii officially qaatay shirkadda wadaniga ah ee Telesom anaga oo ku base gareynay modelka sponsorshipka ee caalamiga martay tartamada lagu qaban qaabiyo iyadoo iska kaashadaan xiriidadu iyo shirkaduhu maadaama sida tahay koobku maxay labada sano ee 2018 iyo 2019 waxa uu sitaa magaca Telesom Somaliland Football Federation Cup ama koobka xiriirka kubadda cagta ee maalgelisay Telesom aad baan ugu mahadnaqaynaa shirkadda Telesom garabka weyn ka qaadatay inay dhiirigeliso ciyaaraha Somaliland qaasatan kubadda cagta aad waan u soo dhaweynaa wada shaqaynteeda iyada iyo shirkadaha kale ee maanta waxay meeshan joogaa ee ka qayb qaatay iyaga laftigoodu tartankan maartay balka xayisiisadiisa tartanka guud waxa ku suntan shirkadda isgaarsiinta ee Telesom Cabdiwahaab Maax ayaan 2 daqiiqo aad u kooban siinaya barnaamijka maadaama tartankan Telesom ay tahay cidda ugu weyn ee maalgelinaysa kaalinteedana lagu suntay magaca kadibna bal wixii kale sharaayka kale aynu isku soo noqon insha Allah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل وقور قابن هذا الكون وقابن يهي وحن مرك وضع مهتنقي وزارة يحرير كا وبرنامج كان سوق قبل قابي بلوجي أنا قلنا نولي مسيان وقعاونه وعاو شرفنا برنامج كاسير قوليستي عاونا إنه وجهنا إن لقبته قابب كيسقو آريين أما بختيار نصيب كيسري سقو آريين كوحه أي ترتن كقو قيب قليين شرف بينه هاي إنه عاو هالكن إذن لشوقنا أنغو سبونسر كريني برنامج كان قيبته مهم سنة كقاضني دورنا إن شاء الله تعالى إنه سيودنا سنة كان سنة كنا هدي له هيدمو سنة وزارة يحرير كوا صعنه كل أنغو شدة أنه كلا له وحوي إلى الرجال يدل يردين حيسيسا سبورتسكا ومهمة أي وبهم تهدل يردين إنه سجارة لو تحكيليو مدة كلا وحي وحبنا كترتها عفمات كشركة يك مسكح ذا الوضبة لنا عكلا waxay dhalinyaradeena ka mashquulin doonta waxyaalo badan oo dhalinyaradu ku mashquuleen oo ugu muhiimsan yahay qaadka iyo tahriibku dhalinyaraduna waxaan rajaynayaa inay ka faa'iideystaan tartanada noocana waxaynu ku mashquulsanahay baryahan inuu koobka dunida daawanayno laakiin waxaan rajaynayaa wareegyada noocana iyo tartanada noocana marka la qabto inay ka soo bixi doonaan kuwii tartamada dunida ka qayb gali lahaa waayo cid 9 bilood in ka badan ku dhalatay ma jirto إنما الدنيا كعيارة وإنك وكله أنت كل رنا بكل شيء لكن وحي ما دندال وينو أودنا وينو كرنا لكن وحي كل حدا انتهي قوان قارة شرا يعني نجا قوان تاني نقارنو ينهرو دقاقنو وحن تلسو متاجن تاني إذن عاوسو إذن يقرب استاكتو وحكا صعود اللي يرضى عيارها كبدا عكت اللي جوهر مرينا يقرب تاجناتو وحي سكو حدا انتهي سيدا يديك يدين كقوان تاني النقطان تذكر قيب قاتة ترتن كدنيا وكالما هورك جلا aynaan noqon dad suga oo xagga dambe ka galo ilaa wala naga horeeya waxaan rajaynayaa inaad noqotaan qarankeenuna uu noqdo mid ku suntan horumarada kala duwan ee dunida sidoo meelo badan oo horumarka ugu suntan oo ugu horeysa tiknoolajiyadu oo dunida aynu kaga suntannahay
waxaan akhriyay shalay ugu dambeysay maqaal joornaalka afka dheer leh ee la yidhahda Wall Street Journal uu ka qoray Somaliland uu si gaara waliba uga hadlay Wall Street Journal markuu qorayay kaalinta dhaqaalaha uu ka qaatay adeega zaad iyo Somaliland magaceeda kaalinta uu ka qaatay waad akhriyi kartaan Wall Street Journal bisha 6deedii ayuu ka qoray maqaal dheer wariye ka tirsan Wall Street Journal bogaga hore joornaalkaas oo dunida aad looga akhristana waa lagu soo qoray waxaan rajeynayaa in ciyaaraheenuna heerka iyo heerka wanaagsan gaaraan waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad waxaan u mahadnaqayaa soo qaybgalayaasha waxaan u mahadnaqayaa maxay shirkadda Telesom oo koobka maxay sponsor gareysay aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa maxay TV-ga Home Cable TV oo mar walba maxay nala garab taagan maxay ka wasaaradda ahaan anagu waxa weeyaan garab taaganay mar walba xiriirku inuu maxay ciyaaro soo bandhigo in kooxaha maxay dalka oo dhan la gaarsiiyo ciyaaraha sanadka dambe waxaan rajeynayaa in maxay aan kasii balaarno kooxaha oo ay gaaraan maxay degmooyinka iyo goboladaba ay gaaraan maxay koobkan gaaro koobkan lagu magacdaray FA Cup oo uu balaadho waa ogtiin dalkeena duruufaha jira duruufaha awgood ayaa u qabsan waayay in maxay koobkaasi uu waqtigii loogu talagalay qabsoomo mar walba waxa jirta maxay duruuf maxay ay naga hor istaagayso marka waxa kaliya maxay halkan aan u doonayaa inaan maxay ku gubaabiyo dhalinyarada koobka waa la idin bilaabay sida la sheegayna waa live haddaba muxuu ka duwan yahay koobkii hore koobkan wuxuu ka duwan yahay live baa laga dhigayaa sumcad baa la doonayaa marka inaan u yeelno lama doonayo maxay in sumcad xumo marka kubadda lagu daawanayo live-ka iyo marka kale waa kala laba marka tarabuunku daawanayo ee jiidanaysaan ee la saxaganayo la istilayo waxba maxay nagama ceeb naguma aha laakiin maanta banaanka loo saarayaa sida la sheegay adduunka dhan baa laga daawanaya waxa la ka doonayaa akhlaaq baa laga doonayaa kooxaha lama rabo maxay inaad dabeecadii hore ee jiidadka iyo maxay koobku 16 kooxood ma wada qaadayaan koobka waxa qaadaysa koox baa qaadaysa marka waana ku tala gashaan in maxay guuldaro iyo guul labada ku tala gashaan weey in dhaqankii hore wax ka bedeshaan weey xiriirka waxaan ku gaabeynaa in shuruucda ay adkeeyaan kooxdii la timaada wax ka duwan maxay dhaqanka iyo akhlaaqda loogu talagalay ciyaarta talaaba laga qaadaya ma jirto maxay favor dambe la sugelaya marka waxa la doonayaa akhlaaq wanaag in koobkaas ku dhamaado sida la sheegay shirkadu sheegayna waxa weeye dhiirigelin bay noqonaysaa waxa weeye maxay kooxda la timaada maxay la timaada akhlaaq wanaag iyo la timaada asluub de wasaaradahan iyo maxay qaran ahaanba wala garab istaagaya waxa weeye wax yeelanaysa marka sumcad bay ku yeelanaysa qaranka kooxdu waxay noqonaysaa gool u qaranka matalisa laakiin kooxda maxay garsooraha ku dhex fadhiya maxay garoonka dhexdiisa ku fadhiya ee caaypanta ee maxay la arko marba ku ciyaaraya maxay akhlaaq xumo waa la ganaaxaya dib baan lagu celinayaa kooxaha hoose kooxda eeda bi baa lagu celinaya dibina si baa lagu celinaya wayna ogaateen marka waxaad ku go'aaminaya inaad ku taxadirtaan dabeecadii hore dhaqankii hore wax ka bedeshaan in aad garaadkii ciyaaraha maxay aad kubcisaan in ay ciyaaruhu noqdaan ciyaaro maxay caalamka la janqaadaya aad baan ku go'aaminaya waxaan ka rajeynayaa ciyaar caafimaad qabtaan laga soo bandhigtaan ayaan ka rajeynayaa mar labaad waxaan u mahadnaqayaa Home Cable TV aad baan u mahadnaqayaa maxay mulkiilahood TV aad baan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa kale maxay dhammaan cidii ka qayb qaadatay oo dhan shirkadaha ka qayb qaatay oo mahadnaqayaa iyagana aad baan salaamay dhamaantii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.